gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka awdal mudane maxamed aadan suldaan oo maanta telefishanka caalamiga Ariel TV kula hadlay duleedka bariye magaalada Boorama ayaa ugu horeyntiiba waxaan weydiinay sida uu arko shirweynaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye dhawaan uga furmaya magaalada caasimadda Hargeysa kulmiye waa caado inay isqa qabsadaan kulli shirweynayaashooda inay barka dareerana waa caado dhammaan waana mid ay kala sameeyeen xisbiyada Somaliland guud ahaan walow iyagu ay yihiin kuwa ugu khilaafka badan leh intaasi kadib gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee gobolka awdal mudane maxamed aadan suldaan waxa uu naqdiyay qodadii shirki jaraa'id ee dhawaanta u jeediyay wasiirka hore wasaaradda madaxtooyada Somaliland siyaasi maxamuud xaashi cabdi su'aasha haddaan soo noqday maxamuud xaashi waan dhageysanayay khudbadiisii maxamuud muddo badan buu siyaasadda ku soo jiray xilal kala duwan buu soo qabtay xilkii ugu dambeeyay waxay ahayd wasiirkii wasaaradda madaxtooyada waxaan arkayay maxamuud isagoo reer awdal ragga tartamaya u jeexaya ma taqaana wixii la oran jiray carruurnimadii mucimucay oo xanaf ka dhex raadinaya maxamuud cabashadiisa waxa uu dheeray cid lugta ku sii kaxaysan uu doonayay oo sii raacda maxamuud waxaan oran lahaa xisbiga hadaad salugtay maxamuudow معارنمadu way ku furan tahay معارنمadu way ku furan tahay lama dhito su'aasha weydiinayna waxaad markuu raga kala saaray uu lahaa wasiirka ganacsigu xilligaas uu xisbiga soo galay xilligaas soo galay afayeenkii xisbiga ee gobolka awdal baan ahaan waqtiga doorashada koor uu ka sheekanay taariikhda uu maxamuud sheegayna wali baa maxamuud nin war u hayeen baahayn reer awdal cid xisbiga kaga jirta iyo xubnaha ay kala yihiin war u maahayn maxamuud waxa wax la weydiin lahaa saddexda rag ee reer awdal haday lacag isku qabsadaan marxaatiga kulmiye maxamuud inuu weydiiyaan oo saxban warkila way maxamuudada xilka joogay waxa warumahayn in iska xoogsanaya ama airportka $10 ku nabo ama gidaar yar oo kale waxa ka soo unjufo ama lacag macaawana waxa ka qanjiiriyo in xoogsi ku jiro ha maxamuud walaakiin xisbiga waxa la wuxuu war u hayay maxamuud ma jirin muddada anigu xisbigan joogay xoogaalkan waxa waxaana qaban su'aasha ay saxaafadu ka ilmaantay ahayd wuxuu baydin duubtaan inay weydiisaan bay ahayd waxa weeyaan waqtigaad wasiirka ganacsiga ka dalbanaysay inuu campaigner noqdo wasiir maxamuud waxaan weydiinayaa xisbiga uu ku jiray xisbiga uu xubinta ka ahaa qofku marka uu xisbiga soo galo ee uu xubin ka noqdo ayaa xilka campaignka loo dhiibtaa xisbigu ahaa maxamuud xaashi oo saajin markaa ad campaignka adiga Muuse ka dalbayseen ee leedahay darbi jibriyo sinrajiyo ama gobolka kale wax nagala qabo xisbiga uu ahaa baan ugu dib weydiinay saxaafaddu weydiisay tahay guntiga gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka awdal waxa uu istul taagay su'aal taagan oo ah tartanka siyaasiyiinta reer awdal ugu jiraan kursiga afraad ee xisbiga kulmiye isagoo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliic ugu baaqay inuu ka tanaasulo tartankaas isla markaana uusan loolan la gelin golihiisa wasiirada waalkii tamarta siyaasiga reer awdal ay dhigtay weeyaan anu kuma ceebsanayo waxaan se ku sheegayaa ragga tartamaya ay warag isku deegaana waraga degme kaliya ka soo jeeda saddexda ninba anigu waxaan qabaa wax weyn oo bigashuuya oo ma taqaana reer awdal ay ma taqaana cunfi ama sida maxamuud xaashi u dhadalka u dhigayo ama ay tahay wax uma haystaan ugsada gudoomiye ku-xigeenka afraad reer awdal way ka dharagsan madaxweyne ku-xigeenka qaranka anigu waxaan leeyahay inuu ka haro tartanka waan jeclaan lahaa Cabdiraxmaan Sayliic waa nin waqti badan soo wada shaqeynay muddo badan aan soo wada joognay waxaan u lahaa hal tartamin golaha wasiirada waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga Ariel TV Boorama